بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا مدة الصومالية ملول بأدونك كجوكته كراهن وحن مقال كان أنت وحقدر يا باشا قرر إن كذا شيء أنا دونا هيو إن كهضله كلمة دي أما لفظي أي كهضلين عبد الناصر صالح صومنا إياه أبشر أذن هنا way ku beeniyeen masiirkii iyo go'aankii ummadda ay ku gaadhay qamalaha qundi ay hoos tagayay degmada Guradaamola waxaan doonayaa intaanan barnaamij ku guda galin inaan hal xadiis soo qaato maadaama aan ummad islaam nahay xadiiskaas oo warinaya Imam Ahmad min xadiis Abu Hurayra radiyallahu anhu wa rasuulku leeyahay alayhi salatu wassalam سيأتي على الزمان سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبطة قيل يا رسول الله وما الرويبطة قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة مركو حندونا يا مادام وني والبابا اسكج على ذينه يعني مصير أمداد إنه رها أنا مثلا أنا نجوجي إن واحد كتير ملها بندونا يا مركا سيدي دابا قانك يتلاذا أمده مرجع بيلاده روح والبا كما هذا مركا وحندونا يا إن الدين بياميو مرجعي يا أمدي قرة وحا أي كوهشي سي oy go'aan ahaan u soo saareen raga walaalahay maalin dhow tadeecada tagay beeniyay baan rabaa inaan kalimo u dul istaago qodobadii shirka ka soo baxay iyo muuqaaladii maalin dhow aan ka sii daanay TV-ga awalan qurra meel walba dhanbu isaga yimaaday deegaankii waxa laga saaray 70 nin oo odayaal ah sida muuqaalka aad geedka ka arkayseen yani TV-ga ka arkayseen waxay soo gaareen go'aan qodobadii kale ee shirka looga hadlay gooni baa loo dhigay qodobkii dhaqanka horta lafdiga dhaqanka la yiraahdo waa ugaaska dadku uma heestaan yani waxa laga yaabaa xogaha Soomaaliga baa laga tagay oo dhaqani ugaasba waxay u heestaanba dhaqanku inay wax kala yahay dhaqanka laga hadlayo ee odayaashu ka hadlayeen waa ugaaska arinta ugaaska waxay go'aan ku gaareen inay xilkii iyo kalsoonidii ka qaateen oy kala laabteen annaga oo afartameeyo oo qurba joog ah baan loo wacay amin bacda casra geedkii ay fadhiyay baan la geeyay go'aankoodii bay noo soo gudbiyeen idinkana waan idin dhiibnay taladiina idin ka rabnaa bayna dhahay go'aankii baan ka soo qaadanay iyo wixii ay ku heshiyeen kadib annagana waxaan imaanay teendada amin xilli 12 saaca asagoo shirku uu noo gudoominaya Sheekh Bashiir xafidahullah Sheekh Bashiir Salaad kadibna annaga dhaxdeennana waxaan go'aan ku gaarnay wadadii ay mareen inaan marno oo qaabkay xilka uga qaadeen aan uga qaadno salaada maghrib oo xogaha dhiman baan loogu wacay way noo yimaadeen markay noo imaadeen baan go'aankii u sheegnay af buuxda waxay nagu dhaheen waxaan taladaba idin kugu dhiibnay waxa xogahana soo gaadhay oo warbixin ah ugaaska bedelkiisa ninkii lagu bedeli lahaa inaad idinka qurba joogta aad wadataan maadaama aad marti tihiin waan idinku ikraamnay taas bay naga ahayd laakiin hadda waxaan ogaanay inaadna idinkana aad wadanin oon isla meel dhigi doono ugaaska cidii aan ku bedeli lahaa shirki iyo barnaamijkan man u soconay ninkii lagu bedeli lahaa annaga ma wadan marka taa aan ka soo gudbo boontiga labaad ee kale markaan intaas annaga ku heshinay boontiga labaad ee kale shirweynihii buu talku isugu yimaaday shirkii baa la furay awalan horta shirka intaan la furin waxa lagu andacooday ugaaska shirka furahayo ugaaska shirka xirahayo ninkan xilka ka qaadnay shirna nooma furahayo noomana xirahayo gudoomiyihii daamula shirkana furay asagana shirka xiray kadib markuu shirkii noo soo 3 maalin noo socday buu haddana tolku wuxuu iska soo saaray odayaal 140 odaya 140 ka oday 117 waa ragii deegaanka annagoo 3 ruux oo qurba joog bis ku jira waa aniga aadan cali siyaad sheemaha dubad 140 kanagii markii teendada aan isugu nimaanay baa waxaan noloo dhiibay arrimihii labada geed lagu soo go'aan gaaray inaan annagana sii taxliilino oon sii xaqiijino
dhinacaan u badana mar saddexaad kadib baa marka waxaan guddi ka dhiganay oo yacni shir guddoonkaan ka dhiganay aadan cali siyaadi iyo sheemaha dubad nin walba oo talka oo markaa joogay odayaashii iyo 15 kale ee yacni guddiga turxaan bixinta ee loo sheegay guddiga khilaafaadkan oo ay webiga qundhi fadhiyeen nagu sugayeen oo guddoomiyahan uu ka mid ahaa labada guddoomiyaha dhaamole iyo guddoomiyaha goro baqasaab ba waxaan u codeynay annagoo 120 oday ah mar labaad in ugaaskii wadadii hore ee la mariyay inaan marinayno iyo inaan waansanayno oon dhaafanayno waxaan ku heshiinay oo codku u batay 120 oday waxay go-aan ku gaareen inay codkoodu yidhaahdeen kalsoonidii baan kala laabanay 40 keeni ka mid ahna waxay dhaheen ninka aan waansano halkaa markii arrinta noo joogta haddana mar labaad cod waxaan ku noqonay nimankii 20 ah ee walaalaheen ama ayagaan raacina mise ayagaana soo raaci kadib baa waxaa haddana loo codeeyey in ay 20kii nin maadaama aan 120 ay in xilka laga qaaday ay u codeeyeen inayna soo raacaan kadib codeyntii haddana mar labaad waxay noqotay ma ayagaan raacayna mise ayagaana soo raacaan baan haddana 120 ka naga codeynay halkaa markii arrinta joogta baa marka waxaan u yeernay guddoomiyaha iyo guddoomiyihii kale goro iyo guddigii 15 khilaafaadka xalinta arrintii baan u dhiibnay kadibna guddoomiyaha wuxuu go-aan ku gaaro yidhaahday maamulka iyo nidaamka hadda jiro waxa lagu saleeyaa waa aqlabiyada shacabka iyo rabitaanka shacabka maadaama 120 aad u codeyseen in ninkii kalsoonida aad kala laabateen warkiina aan hirgelinayaa buu yidhi guddoomiyaha wuxuu naga qaaday waraaqihii kadibna waxaa la soo jeediyey bayaankii beesha ay ku heshiisay bayaanka waxaa ka mid ahaa in ugaaska aan sagootinayna ee tagay aan xilka ka qaadnay 100 halaad lagu sagootiyo 100 halaadna reer walbana laga keena 15 neef oo geela 7 meel oo 15 waxay noqonaysaa 105 neef 3 bilood gudahoodana lagu soo aruuriyay 5 neefna ay noqoto ragga soo aruurinaya sahaydooda 100 neefna la guddoonsiiyay ugaaska xilka laga qaaday midka kalena aan ku ballanay oo waliba baaqa ku jirtay bacda doorasho kadib inay beesha isugu soo laabato oo ninka labaad la caleema saarto go-aanku beeshu saas buu ahaa bayaankaas baaqa ay beesha soo jeedisayna waxaan guddoonsiinay guddoomiyaha dhaamole iyo guddoomiyaha goro meesha ay odayaashu fadhiyaan ee muuqaalka ay leeyihiin gura guul ee yaa noo duceyn weliba aan marka ugu dambeysa aniga dhahaya ugaaska weliba aan dhahaya curadka reerku ha istaago ha duceeyo waa markii bayaanka iyo nidaamka aan ku heshiinay een dowladana rag inoo matalayay aan guddoonsiinay bayaankanaga baa faatax markaas iyo muuqaalkaas meesha teendhada iyaan ku duubnay si hadhow isna khilaaf iyo shirki baa isku qabsaday iyo cid xil laga qaaday ma laha iyo tashwiishkan ay ragga viruska wata inay doonayaan inay ummadda dhexgeliyaan inan u imaanin baan barnaamijka u sameynay muuqaaladuna waxay ku kala yimaadeen waa noocaas awalan waa webiga qundhi oo odayaashii 70 ah ثانيا waa teendhada oo anagoo 40 qurba joog ah oo go-aankooda ku raacnay muuqaalka saddexaad ee u dambeeya waa 140 qof ee odayaasha ee deegaanka ee tolku iska soo saaray ee kaga hadlayay ee ka go-aan gaarayay barnaamijka ugaaska waxaana uga go-aan gaarnay noocaas taladii iyo go-aankii noocadaas ahaa ninka ku magacaabay waxba kama jiraan adeer waxaan ku leeyahay cabdinaasir iyo ninka la yidhaahda abshir aadan hinayo waxaa idin leeyahay caddeemaa laydinka rabaa beeshu go-aankeedii bannaan ku yaallaa hadafkii iyo ulajeedada aad ka wadeena waa laydinka rabaa talabaadee kale cabdinaasir saalax samana waxaan leeyahay waxaad tidhaahday beesha guro weligeed isma dagaalin guro saaxiib anaa ku baryo guro kuma dhalanin mana taqaani dhaqanka guro iyo nidaamka guro sidiisaba 7 jilib waa ilma adeer iyo ilma abti anigan kula hadlayo 7 jilib meel aanan gelin ma laha cid abti ah iyo cid ay wow iyo cid aan adeer u ahay baan wadanahay inagoo dhan lagamana yaabo guro qaabkaad u hadashay iyo fikirkaaga oo kaleeto inuu qaato annagu waxaan nahay dad walaal ah dad dhalya ah dad rixim ah isu tanaasulo is yaqaana isir is ogna waxay yihiin kan waxgala iyo ka aan waxgalaynin marka waxaan leeyahay dhammaan oon halka baaqa uga dirayaa beeshayda meel walba adduunka aad joogtaan zamanka hadda aan joogno waa zamanu fitna ruux walba iska qaylinaya oo doonaya inuu go-aan umadeed iska gaaro wuxuu rabo sheegto waxaa idin leeyahay dhammaan meel walba adduunka aad ka joogtaan waad ogtihiin bayaankaas iyo nidaamkaas ay beeshu gaadhay
intii joogtay way joogtay inta aan joogina waxaan doonayaa inaan qodob idinsoo dul istaajino oon idin tusa muuqaalkan cadeemihii iyo markhaatiyadii iyo hadalkii cabdinaasir iyo abshir ay ka dhaheen adeecadda caqli ilaahay wuu idin siiyey keebaa runa keebaa been ah ugaaska ma aha horta nin la qawabar ah ama gudoomiye lasoo doortay ama wasiir lasoo magacaabay waa oday dhaqameed waa nin mataqaanaa ilaa kafac ilaa dhowr boqol oo sano aabihii awowgiis ilaa 6 ugaas soo maray weeye ugaaskana wuu dhintaa maahan dhaqanka Soomaalida ee maanta jira lama haya ugaas xil inta laga qaado la bedelo marka taas waxa leeyahay waa jaa'ifa iyo fidna dadka waan garanaynaa dadka fidnada ka shaqeynayo shirki qundi anagoo joognay isku dayeen horumarka iyo aayaha ummadda oo laga tashanay inay mataqaana arqaladeeyaan shirki ajandihiisa ay bedelaan fidna ay ka shaqeeyaan qabiilkii gurre dhexdiisa ay mataqaana ka shaqeeyaan fidna ay ka abuuraan bay isku dayeen waan ka diidnay beeshina way ka diiday odayaasheedii dhaqankeedii baa ka diiday oo yiri arrinka inkama yeelin markay soo noqdeen bay waxay imaadeen qurbihii halkii bay ka sii wadeen fidnadii isku dirkii beesha gudaheeda inay shacabka iyo dawladda iska hor keenaan beesha gudaheeda beesha waa beel balaaran taariikhda lagu ma hayo Soomaali way isdagaashay laakiin beesha aan ka dhashay taariikhda lagu ma hayo maalin ay isdagaashay ama wax is yeeshay tan labaad maalmahan waxa miidiyaha ama meelaha mataqaana social media socdo in la yiri beesha shirki ay ku qabsatay qundi mas shir kale oo ka dhacay Nairobi wuxuu yahay ma garanayo in la yiri fiidiyoyaal been abuur ah la soo dhigay la leeyahay ugaas Maxamed ugaas Goor ugaas Guleed baa laga qaaday xilkii ugaasnimada shirka qundi anaga joognay anaa fadhiyay anaga joognay shirka qundi wuxuu ahaa 3 ajanda looga hadlayay ajandaha koowaad wuxuu ahaa qurba joog iyo qaran joog si isku baran lahaayeen oo la isku barto la isu imaado quraan lagu akhristo wixii horumar meesha laga sii dhaqaaqo labo wuxuu ahaa siyaasiyiinta hadda joogto si maxaa idin qorsheysan inaad wadanka maanta aad wax oo ka qabataan maxaa idin qorsheysan saddex waxa noo qorsheysan qurba joogay maxaa idin qorsheysan maadaama qurba joog aad tihiin wadan qurba joog baa dhistee maxaa idin qorsheysan saddexda ajando aha maba jirinbo ugaas baa laga qaadaya iyo ugaas baa la saaraya maba ku jirinbo meesha bulsho sidaadaba ma xumaato waxa uu xumaynayo cidda markaa hogaamintu ah haday la talintiisa iyagu dad bulshada dhex jooga oo ku dhex sugan yihiin bulshada waxba laga waayin dad aan kala wareynin oo maartay ayay baan kala wareynin ay noqdeen dhaliilo badan baa la soo dhigay waxa gurro saaka oo maartay midnimo gurro hala raadiyo kii wax tabanayay qudheeda ee wax bulshada ka tabanayay nin gurro ka baxay ma jiro nin walba magac gurro meel ka mariyo qadiid gurro meel ka maru waa kii wax tabanayay nin gaar gurro uga boodo waa la waa nin walba waxa hogaamin oo noqoto gurronimadiina laga bixi karin midnimadii gurrona maxaa lagu heli karaa hadda hogaamintii waxba laga tabanaya waxa leeyahay aan reebel daanay waxaasan ka tabanaya saas yeelay kan saas yeelay kan saas yeelay bulshada qof hoggaan oo fiyow unbaa marka ay isku raaci kartaa oo wax u sheegi karo oo xeerkii waxba ka lumay xeerkii gurro walaha doogsan dhabad buu noqday wixii shalay uu ku dhaqmi jiray wax saaka meel loo hayo malin wax uu sheegtona wixii on loo yeelo wax xeer oo xakameynay hadda reerkii inuu jirin waxa oo dhan in aab u tahay hogaaminta dhaqanka ayaa la soo dhigay marka maxaa midnimo gurro lagu heli karaa cid aan wax laga tabanaynin oo fayow gurro in loo dhiso oo hogaaminta dhaqanka in loo dhiso total laga gudbay ilaa kuwa qoysaska hoose in la bedelo oo dhaqaab dhismeed cusub loo bedelo reerkii gurro waxa dhaxdiisa reer ahaan loo kala tabanayo oo la kala jeedo laakiin cid iskugu yeedhi lahayd ee midnimadii gurre wixii nin waxa leeyahay xeerkiiba haleeyo leeyahay qaybta dhaqanka haleysay leeyahay kan kala bari wuxuu leeyahay reebel basay dooneen baad u yeeshay aan bari meel kale inuu ka miiso raba oo kii salay markii xeerkii gurre la bedelay markii intii la bedelayna oo qoladan ay baalbeedooda reer ku shuuhaysay hadda joogtay ee todobada ay ugaaskooda la talintooda ayaga u shaqeeya xeerkii isbedelay wax kama qaban oo xeerku kuma jaangoyn haddana kan kale bari muxuu ku fikirayaa wixii shalay asaga maadaama xeer uu ku go'ay ku kii ka weyn inuu asna sameeyo oo xeerkii sidoo doonay isaga sii socdo markii hogaamintii maxaa hoggaan cusub in la helo buu reerkii isku raaci karaa fikir waan isla qaadanay markaan isla qaadanay waxaa labada fikir hadda macnaha hoggaankii hore uu fiican yahay hoggaaminta hore way fiican tahay cid soo jeedisay ma laha 70 kan war miya jirtaa maya cid hoggaaminta hore way fiican tahay loo daayo tirin ma jirto shirkan aan loo kala kicin
جيت كان هذا أنفر إننا إيرا نقولن لأن واحد لو بهاي هدين المسؤولة هلا يلحقك على قاضي نينكي كلو لو بدينا لها waxay u baahan yahay in la soo xulo hadda uu ka qaado iska dhaqaaqo madax la'aan socona ma suuroobayso ma hagaagsano naam in la soo xulo oo aan loo kala tagin ayaan anigu soo dhaweynayaa dhaqankii wixii dhibka noo geysay inuu dhaqankii wala isla soo meel dhigay dhaqankii inaan la bedelana wala isla soo meel dhigay maxay noqotay marka geedkan aan go'aankoodii ku gaarno iyo ma ahe war shirka ka damaan ka dhigano carabkii guru waxaan ka dhadhaminay anigu iyo say ila muuqatay gurre dhammaan toddobaatankii in markii la qiimeeyey dhaqankii ay isku raaceen hadduu sii joogo gurre markii wada joogay way ka dhawaajoon maqlaysa hadalka runtaa laga raaca hadduu sii joogo gurre ma wada joogayo waana xaqiiqo nabiga buu ka baxay arrintan waxaan rabnaa gurre inaan badbaadino dhaqanku waa shaksi gurroona in loo qasamaa mudana maqalna taagi jooga asaga dila berri walaalkii baa lagu bedelaya wax dhiba mala yaana buur laga dhigin ana waxaan u fahmay annagu waan isku raacnay dhaqankii in la bedelo war cadday ku yidhaahda waxaa la yidhi oday biyaha hortiisaa loogu barxaa taa horta yaana buur wareeganin oo gurra go-aan buu gaaray keliya bishintu waxay ahayd waran isku raacnay dhaqankii ha la bedele ma haddaan bedelaa fadhigan warkayga aad dhegeysta lagama leexdo mise labadan beri baan dib u dhiganaa bishu ku intaado isugu imaaday toddobadan guddi ee baxay arrinkayno keeneen inuu wasbuuro waarinay doorashada kala magaalada baan ka dhignaa masaadaan ka yeelay waarinkan xagga naga soo noqday idinkuna ka soo go-aan gaara wey toddobadan guddi horta hadalkay soo go-aamiyeen annagu horta waa ku raacsanay inuu wasbuuraha naga dhaca sida ay u rideen baan ula qabnaa doorashada kale ma haddaan ka dhiganaa mise gadaal baan u dhiganaa taasi tolkayna laakiin anigu waxaan leeyahay hadda doorashada gadaal ha noo noqoto laakiin sida ay garteen ha naga dhaca ay u dhaheen ayaan aaminsanahay haddii tolku shalay dhiibtay waxay ku heshiiyeen dhaqankii in la bedelo dhaqankii in la bedelo way ku heshiiyeen niman 70 baxay halkaas tagay annagu banaanka ka nimid dadkii dhulka deganaa ee guraha saddexda degmo kayba intay joogaan go-aankay soo gaareen aniga waxaan u fahmay inay yidhaahdeen annagu go-aan baan soo gaarinay waxaan go-aanka soo gaarinay hogaankii dhaqanka inaan bedelo kama dambaysi arrintii waxay noqotay in laba qodob laloo soo dhiiba oo kala ah ugaas maxamed ugaas guula guuleed xilkii waan ka qaadnay oo waan ka qaadaynaa taariikhdu tahay 24 November 2018 waxaa si rasmi ah inoogu soo xirmaya shirkeennii beelweynta gurre ee muddada 4 casho inoo socday shirkaasi oo si nabadgelyo ah inoogu dhammaaday waxyaabo badanna lagu falanqeeyay beeshuna ay ka soo saartay baaq muhiima oo mustaqbalka beesha anfacaya haddaba waxaan leeyahay shirkeennii gabagabadiisii waxaa naloo soo jeedin doonaa baaqaasi oo ah mid ay beeshu dhammaan isku raacday gacanna lagu ansixiyey ayaa waxaan soo dhaweynaynaa in baaqaasi naloo soo jeediyo bulshaweynta ama beelweynta gurrene waxaan kula dardaarmayaa in baaqaasi isaga ah qodobada inoogu qoran siday tahay aanu u hirgelino taasoo ah mustaqbalkii beesha iyo wanaaggii horumarkii marka waxaa kaloon kula dardaarmayaa beelweynta gurre in la garab istaago nidaamka cusub ama isbeddelka cusub ee dalka Itoobiya gaar ahaan deegaankeena ka hana qaaday inaynu garab istaagno xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya iyo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hogaaminaya madaxweynaheena sharafta mudane Mustafa Maxamuud Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Ahmed Shide
marka waxaan idin leeyahay shirkeennii oo inoo soo xidhmaya waxaynu ku soo xidhaynaa baaqii ay beesha isla garatay iminkan waxaan kusoo dhaweynayaa in naloo soo jeediyo baaqi waxaana inoo soo jeedinayaa mudane aadan cali siyaad kusoo dhawaa baan leeyahay aadan aad iyo aad ba umahadsantahay in ugaaska beesha lagu sagootiyo boqolkii neef ee geela ahaa ee uu hadda oo uu hadda lagu soo dhammaystiro boqol neef oo geela in loo qabto laguna soo dhammaystiro muddo 3 bilood ah in caleemasaarka ugaaska cusub laga dhigo xilliga doorashada kadib waxaa idin leeyahay dhammaantiin allaha kelimada xaqa nagu sugo wixii xumaan iyo balaayana allah naga ilaaliyo midnima idin leeyahay sida uu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam fa inna yada allahi maca aljamaaca ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisa iyo hiilada rabbi waxay la jirtaa mar walbaba midnimada iyo isku duubnaanta iyo aqlabiyada meesha ay ummadda u badan tahay marka waxaa idin leeyahay meel walba adduunka aad ka joogtaan beeshaydahay culimadeeda caamadeeda siyaasigeeda midnimo go-aanka ummaduna weligeedba go-aan way gaari jirtay haddana go-aankay gaadhay wax kama jiraan laguma tilmaami karaa idin leeyahay dhammaantiin waxaa idin leeyahay meel walba aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh